kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhamaantiin ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeennii milicsiga siyaasiga oo ka baxa telefishinka caalamiga ee Universal TV xilligan oo kale toddobaadkan iyo barnaamijkeena waxa noogu martiya xildhibaan Cabdilqaadir Jaamac Xamuud oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland golaha baarlamaanka Soomaaliland waxaaga Cabdilqaadir bal waxa nooga warartaa taariikhdaada oo kooban aad baad ma santahay wariye sare bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan waan salaamaya inteena daawanaysa iyo adigaba taariikhdayda oo kooban hadaan ka sheekeeyo anigu waxaan ku dhashay magaalada Cergaabo gobolka Sanaag runtii dugsigaygii sare dugsigaygii hoose dhexe iyo kii dugsigaygii hoose dhexe iyo primary labadaba waxaan ku soo dhameystay Cergaabo magaalo u jirta adigu ilaa 50 kilomitir oo la yiraahdo Jiidaliye dugsigaygii sarena waxaan ku dhameystay Cergaabo halkaas jaamacadii aan oo gal lahaa waxa dhacay dagaalkii adigu sifuulkii halkaas ka bacdi waxaan ka bilaa safarkii markaan u baxnay xagga loo gudbay Nairobi baan tagay Nairobi Bombaasan joogay Bombaasan shaqada ka bilaabay macalinimada 4 sano aan macallin ahaa halka Kenya joogay baan hadana Hargeysa hadana macallinimadii ka sii bilaabay Sheikh Bashiir School ilaa inta aan Sheikh Bashiir joogay 2001kii baan galay golaha wakiilada iyo isagoo markaa goluhu golihii beelaha oo aan doorasho loo bixin 2005kiina doorashadii baan u baxay gobolka Sanaag baan ka tartamay waana ku soo baxay alxamdulillah ilaa hadana golaha wakiilada ka tirsanahay jaamacadaydii waxaan ka dhigtay Hargeysa siyaasadda dhawaan baan ka qalin jabiyay siyaasadda political science and leadership xiriirka caalamiga iyo siyaasadda bartay wali hadana ma aan diyaarin masterkayga laakiin ku rajooynaa iyadana inaan bilaabo insha Allah hadii la yiraahdo waxaaga xildhibaan saaka doorashadii golaha wakiilada ee gudoomiyaha loo tartamay kadib markii uu Cabdiraxmaan Ciro dhigay goobjoog ayaad ka ahayd wayga su'aalo sideed u arkaysay bal jawigi saaka jawi fiican buu ahaa runtii mudanhuna de xaq uu leeyahay inay mudanayaashu ay doortaan shir gudoonka isleeyeen marka wax uu qaban karaya runtii de doorashadana goobjoog baad ahayd adigoo adaaba de waxa su'aalaga weydiinaysid oo soo dhaweynaya laakiin doorasho fiican baan u arkay waxaaga adigu waxaad tahay xildhibaan ka tirsan kulmiye waana ka codaysay baashe sideed u arkaysay runtii waa sax waa sunnaha dimuqraadiyadda ka mid tahay qofku choice-kiisa qofku marka danaynayo isleeyahay wax uu qaban karaya inuu codayo waa runtaa waan ka codeeyay dibna ma aha de mudanuhu haduu meel ku jiro inuu meeshiisa uu ku jiri karaa laakiin dib ma aha haduu isiraado way anagu waxaanu ka talinaynaa xaaladda golaha sidii golaha loo hogaamin lahaa hadana waan soo dhaweynaynaa de kulli anyway si kastaba ahaatee shir gudoonka hadda ku guuleystay waxaaga dhinaca kale markaynu ka eegno in badan baa beelihiina tarafyadu cabashooyin badan gaar ahaan beeshan sideed u arkaysaa maanta hadii loo xiray laba isku peel ah oo labada ay tartameen oo baasha ku soo baxay sidee ayay sideed u arkaysaa kulli dhinaca kale marka laga eego waxa weeye de transparency baa la raadinayaa wal sidii hore golii hore oo aan runtii aan xusuusto intaan doorashada gelin waxa joogay qaybi xaabsada ka soo horeeyay runtii waxay ahayd de wax lagu soo heshiiyay Soomaaliland ku heshiisay asaaskii Soomaaliland markii lagu soo dhisay Boorami marka sababahaas oo saldhig u ahaa wuxuuna waxay ahaayeen saami qaybsi lagu heshiiyay maanta haduu kursiga ku soo noqday gacanta hartiga aad baan soo dhaweynaya runtii xaqiiq waxaaga maxaad ka filaysaa marka la eego matalan kulmiyahan idinku waxa ahaydeen qoladooyinka ugu badan baa ahaydeen laakiin neck to neck buu noqday oo hal qof baa lagu kala badiyay marka mar labaad aan kugu soo celiyay doorashadu dhinacay u dhacaysay ma doorasho xalaal oo xaq ku dhacday bay ahayd waad arkaysay sidii loo maamulay sidii loo gudoominayay runtii kursigana de waa la tartamaa waana la kala badiyaa runtii waan soo dhaweynaynaa de dibna ma arko wayna dhacdaa in doorasho hal lagu kala badiyo hadii ay bareejo ahaan lahaydna shir gudoonku baa codayn lahaa halkaas lagu taasna saas u dhici lahayd markay labaduba ay metal 9 haday noqdaan gudoomiyaha marka sheer gareynaya codka xaq u lahaan lahaa laakiin hadda hal cod baa lagu kala badiyay dibna uma arko de halka cod wayna dhacdaa waan caalami de doorashooyinka sometimes ay u dhacaan marka waad arkaysaa in aad la isugu dhawaa runtii waana soo dhaweynayaa de dhibaato uma arko waxaaga doorashooyin hadii aan eegno diiwaan gelintii matalan bariga Sanaag
waxaa jirtay in matalan ilaa baran laga codeeyey maanta oo waxaan leeyahay laga kaadharkii laga qaatay sideed u arkaysaa guud ahaan runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa dadkana wax badan baanu ku wacyigelin inay kaadharkooda qaataan waxaan xusuustaa golaha markaan joogay dad xagga ka yimaada gobolka Sanaag oo gobolada bariga inta badan inay mar walba oran jireen kaalay naga damiino waaxda socdaalka oo kaadhkayga aan soo wari jiray marmar aan raaci jiray maanta tii way ka xoroobayaan qof walba kaadhkiisa uu qaadanayaa caadi isagoo xoraba wixiisa samaysanaya hawshiisa qabsanaya runtii waana soo dhaweynayaa runtii wax yar un caqabad ahayd markii doorashadu kaadh qaadashada la sameynaya diiwaangelintu dhacaysay waa la soo yara durkiyey duruufaha ugood runtii annagu waxaan jeclayn inay meel walba ka dhacdo dadku kaadhkooda qaataan markaa laasqoray iyo dhahar labadaba gudaha la soo geliyey waxayna ahayd dadkuna dee iyagaa moogtahay dadku xaq u leh inay qof walbi uu kaadhkiisa qaato oo wuxuu xaq u leeyahay uu raadsado laakiin may dhicinoo xoogaa qalalaase baa ka dhacay laakiin majority maantana waxaan qabaa inta qaadata inay kaadhkooda qaadan doonaan codayna doonaan insha allah xisbiga ay doonayaan marka ay danaynayaan inay u codeeyaan oo waxqabadka u muujiyo dadaalka badan u sameeyay baan rajeynaya haddii laha yiraahdo waayahay inkastoo aad ii sheegtay inaad ku soo baxday cod haddana beelihina hartida inta badan ereyga aada u diidi jirteen wuxuu ahaa isxambaar maadaama diiwaangelintii maanta si ballaaran u gasheen ereygaasi maydinka hadhayabaad is leedahay runtii waa caadi waa isxambaarkan ma ahayn farsamo bay ahayd lagu gaadhay markaa golihii hore go-aanka ku qaatay waxaana ahayd doorasho dadban in lagu soo saaro si aan somalilan aanay u kala hadhin ay u wada socoto tiina maanta in laga gudbayaan u malaynayaa oo dadkii kaadharkooda qaateen doorashona ay dhici doonto qof walbina qofkuu doono uu codayn doono uu isleeyahay danaynayo qofkaasa jiij ama wax bedel sameynaya waayahay xildhibaanadiina ka soo jeeda beelahaasi hartiga ee hargeysa jooga ee golayaasha ku jira waxaa had iyo jeer dad badan oo gobolka ay naga daawanaya ay idinku dhaliilaan inaad tihiin niman idinku shaqaysanaya oo laakiin dadkii ay ka yimaadeen aan waxba u qabanayn gol ahaan marka loo eego sideed aragtidaa u aragtaa runtii dee waa qof walba aragtidiisa xor buu yahay inana dhaliilana shaqadayba ka mid tahay waayo haddii qofka la dhaliilo shaqadii buu dee hagaajinayaa systemkii waxbuu ka bedelayaa laakiin anigu ma qabo dhaliil xoog le inaan leenahay waayo anigu mar walba waan tagaa meesha waana ka warhayaa xitaa degmaan raadiyey markii si aan markii udubtii horaan ahaa oo markaan saaxiibada yiraahdo bal wax mashaariic waxaan meesha ku gaarsiiyo deeniyo degmada ma lihide maxaan kugu siiyaa mashaariicda sida tiina waan ku guulaysanay in kastaana si fiican hadda u dhaqaaqinaana weli korin degmada iyo laakiin dadaalka anagu waxba lama hadhin runtii qof walbina dee shaqs walbina oo lasoo doortaana inuu dadaalo oo uu dee dadkii soo doortay uu ka midha dhaliyo oo wax u qabto waa mid meedka ku jirta inkastoo dee wuxuu somalilan ay saddex dhardhaar tahay oo xukuumaddii oo fulintii iskale golihii sharci dejinta iyo maxkamaddii markaa anagu golihii sharci dejinta nahayo inta badan inaanu dhawaaqno hadaloo niraadno halkaa waxaa hala gaarsiiyo mooye fulinta dee waxa iskale waa wasiirada wey waa hagaag maadaama maanta kaadh qaadashadii oo meelo badan loogu talagalay inay matalan xildhibaano deegaankii ay ka soo baxaan sideed u arkaysaa bal in dad badan oo matalan ereygan aan kuu sheegaya imika xildhibaanadiina amba ahaataan kuwa golaha xukuumadda ku jira u arkayay in bal dad cusubo oo aan hargeysa un joogin ay ka qayb galaan sideed u arkaysaa aragti ahaan aad baan usoo dhaweynaya aad iyo aad waana wax loo baahan yahay noloshuna mar walba waxay ku jirtaa tadawuraad in wax isbedbedelaan marka waa lasoo dhaweynayaa qofkii dee ku guulaysta oo farsamadeeda iyo kartideeda leh waa lasoo dhaweynaya insha allah hagaag tabashooyin badan baa jirta oo matalan dadka aad ka wakiilkahay ay tabshaan amba dhinaca fulinta ha noqoto amba dhinaca waxyaabo badan oo kale ha noqoto tabashooyinkaasi maxaa ka qabataan sidee dadweynaha tabashooyinka ugu gudbisaan xukuumadda iyo meelaha kale khusaysa runtii waa mahadsan tahay xukuumadda runtii maanta jirtaa runtii iyo xisbigeeda kulmiya waxaan qabaa inay dadaal badan samaysay meelo badan oo aan wax gaadhin inay gaadhsiisay runtii mar walbana dadaal kugu jira laakiin marmar haddii wax qabsoomi waayaan dee maaha macnaheedu waa laga gaabi laakiin in la dadaalaan mar walba jeclahay oo intaa loogala sii dhowaado
مثلا systemku marba waxba isbedelaya madaxweynihii hore daahir riyaale ka ahin sharaftii iyo karaamadii ku wareejiyay dalka waad ogeyd ilaa hadda midhihiisii waa la wadaa madaxweynahan waxa weeye waa madaxweynihiisna wax qabadka wax badan baa la qabtay inkastaana gobolka bariga sanaag sidii boqolkiiba boqol aan sidii la rabay aan u gaarin haddana ma oran karo wax lama qaban waa la qabtay waayo iskuulo badan oo hadda processka ku jiray baan xusuustaa oo 8 iskuul ay kamid ahaayeen oo intii wasiiradii samsam ay joogtay meesha fulay marka qaar kale badan inay fulaan baan rajaynayaa wixii ay xaq u lahaayeen inay mar walba helaan baan soo dhaweynayaa waayo haddii afrikada inta badan caasimadda wax walba ku kooban yihiin wuxuuna inay hore u socdaan baa la rabaa oo ay gaadhaan gobolada oo ay weliba aada loogala sii dhawaado intaasoo ay hore u socdaan waana soo dhaweynayaa runtii mashaariicda iyo dadaalada hadda ka socda aad baan u soo dhaweynayaa waxaa kaloo un muhiima waxqabad uun in la sameeyo taasna xukuumaddan iyo xisbigeedu way ku suntan yihiin waxqabad hagaag markaad eegto gaar ahaan weliba beesha aduu aad ka soo jeegto ee dhinaca baran markaynu eegno waxaa laydinku tilmaamaa had iyo jeer inaa ciyaarta gorayada aad ku kala jirtaan puntland iyo halkan marka aragtida maxaad ka qabtaa runtii waa mahadsan tahay haddii aan kula yaro kaftamo beesha dhexe waad og tahay inta meelood ay kula jirto lugaha marka maba soo koobi karo dee qaran baynu nahay marka haddii ay taasi dhacdo dhib uma arko laakiin mar walba waxaa muhiima in somaliland ay socoto oo transparency uu jiro oo dadkaas shacabkaas waxay tabayeen ay xaq u helaan waayo takriir aynu ku kala badanayna waxa weeye markaad isbarbar dhigtid comparison Puntland iyo aad isgarab dhigtid Somaliland waxa weeye shacabka saynu kala kasbanaa muhiima oo shacabku wixii ay xuquuq u lahaayeen ay xaq lahaayeen haday gaadhaan shacabkaaba soo jiidanaya Somaliland dalka iyo dalkuna waxaan qabaa waa Somaliland laakiin kasbasha loo baahan yahay in dadkii wax la gaarsiiyo laakiin tana leedahay lug baa kula jirtaana dadkoo dhan baaba sidaas ba idinka laftiinu waa meelo badan baa lug kula jirtaan haday sidaa u dhacdo waa hagaag xildhibaan Cabdulqaadir muddo badan baad ayaad ahayd مثلا baarlamaanka ku jirtay baarlamaankiina guud ahaan haddaynu isku soo qaadno waxaa had iyo jeer laydinku tiriyaa in ay مثلا fadhiida haydeen oo aydan مثلا waxyaabo badan oo idinka fadhiyay aydan qabanin aragtida maxaad ku difaacaysaa aad baan uga xumahay horta fadhiid wax la yiraahdo fadhiid ma jirin goluhu shaqeynayay xeerarkan hadda dalku ku kala socdo dhan ilaa golihii hore ilaa golahan labadaba ku jiro golahan aad dejiyay runtii xeerar badan oo tiro badan ilaa 42 ilaa 42 ilaa 43 xeer buu dejiyay intaasna waa waxa dalku ku kala soconayo marka lama oran karo laakiin waxaad leenahay inaan hore u soconno oo wixii yoolkii iyo hilmooyinkii dadku higsanayeen aanu gaadhno runtii waa muhiim laakiin haddii wax yaro qalloocsamaan dadaalkeeda inaanu dadaal sii samayno laakiin fadhiid ma ahayne waxuun yaree hadda waxyaalaha maanta keenay in shirguddoon dhiig cusub markii hore aanu istiraadno keena si goluhu uu dardar cusub u keeno haddana tiina ma gelin oo gudoomiye hore in badan oo khibrad isaga laftiisa la aansleeyahay oo in badan joogay unbaa nasiibka u helay laakiin anagu qorshahaygu wuxuu ahaa golahan waxaa shacabku ku sheegayaan inuu meesha ka baxo tan ugu jeedo waxa weeyaan waa danaysanaysan oo مثلا mar walba waxa lagu leeyahay dheemaal baa haydeen mashaariicda marka la eego interestkiina uun baa idinku wadateen laakiin se wixii dadka u dana sicir bare baa jira waxyaabo badan baa jira arrimahaas oo dhan idinku dantiinu baa ka eegataan aragtiyada sida maxaad ku difaacaysaa aad baan uga xumahay saaxiib dhaameelkaas iyo waxaasna runtii kolle dadku waxay iska sheegaan xaqna waa u leeyihiin inay wax sheegaan oo dadka iyagana soo doortay laakiin anagu inaan dadaal badan sameeyno hadda aan xaga kaaga warramo sixir bararka waxaan u yeernay gudoomiyihii banka waxaan u yeernay wasiirka maaliyadda waxaan u yeernay hanti dhowrihii waxaan u yeernay general wax cidaan aan u yeedhin oo aan gudidayada hanti ilaalinta hantida qaranku ma jirto intaan waxaan ku dadaalayna war sidee xaaladan maanta dalku galay ama waxa sixir bararkan looga bixi karaa runtii sixir bararkana iyo hadda dhibaatooyinkanna waa wax hadda inala kuubsaday markii hore meel buu taagnaa standard buu ahaa oo waxyaalo badan baa jira laakiin anagu dadaalka iyaga waxba lama hadhin mar walba waan wareysanaa mas-uuliyiinta waan weydiinaa sida looga bixi karo sababaha lagaga badbaadi karo intaba iyo talooyin iyo tusaaleba waan siinaa
oo gudi ahaan baanu dee gudiyadoo dhan baa sidaa eeg waad aragtay gudiyada goluhu waa 9 gudi gudi walba maalin walba wasiir bay u yeedhisaa waxay u yeedhisaa direction dadkii bay wareysanaysaa marka sababahaas oo dhan baa la iska wareysanaya bal sidee xaaladda looga bixi karaa taana waxaan rajaynayaa dee kulle dhibaatooyin badan iyo duruufo badan way nala soo dirsoonoo matalan inagu waxaynu xoolaheena nool ayaa ahaa dollarka iyo dee waxyaalahaynu wax ku kala wadnay xoolihii noolaana waa laynaga joojiyey laakiin hadda mooshinkan xashka waxaan rajaynayaa sidii waati lagu dhawaaqay in la furay marka kolley wuxuu isbedeli doonaan insha allah laakiin anagu mar ma yaraysan runtii wadna gudiyo badan waa leedihiin gudida musuqmaasuqa jirta gudida way iga su'aale wali wasiir u yeedheen oo tallaabo ka qaadeen muddo badan baad joogtay ma xasuusta amba qof kale oo matala hay'ada amba qof kale oo tallaabo wali ka qaadeen ma xasuusta waa mahadsantahay Faisalow laakiin waxa weeye dee anagu maxkamad ma nihiin xilkana kama qaadi karo laakiin way jiraa wasiirro badan aan u yeernay oo warbixin badan laga qoray warbixintuna ma aha wax markaba sidaa ku soo dhigay haddii aad aragtid wax qalada waxa weeye khaladkii waxa sixi kara oo qaban kara waxa weeye waa maxkamad qofkii haddaan qof wax iskaga tilmaamo wixii ilaahay maxkamad laakiin dareenkeeda waan leenahay waanu ka shaqeynaa waanu ognahay khaladaadka jira wixiina mar lama wada faafinayo sir qaran baa la hayaa gudidana markay hawl soo qabato golaha u geynaysaa golaha marka halka ka sii qaadaya marka waad aragtay dee mar walba gudi u yeedhaysaa wasiir wareysanaysaa marka mar walba wixii lama wada daadinaya laakiin wixii khaldan runtii in la joojiyo waa muhiim laakiin anaga shaqadeedu waxa weeye inaanu xusuusino inaanu qabanno inaanu wareysano inaanu ku cadayno laakiin xil qaadisteeda iyo waxeeda wax iskale madaxweynaha ka tirsanaan jirtay adoo xilliban aad ka tirsanay gudi baan soo maray mar waxaan ahaa gudidii ugu horeysay joogtada golaha hadda waxaan ahay gudida ilaalinta hantada qaranka gudoomiye ku xigeen baan ka wayahay maxaa warbixino مثلا ka diyaariseen مثلا qaarkood meelaha qaarkood hanti boob baa lagu sheegaa waxyaabo badan baa jira maxaa wali waan wadnaa hadda waxaan dhawaan u bixi doonaa inaan gobolada oo dhan soo maro oo aan sanadii hore waan soo maray xitaa waadogay gudidii ugu aktifsanayd bay ahayd oo gobolada meel aan soo marin ma leh oo aanan tala bixin iyo warka keenin haddana waan ku jiraa sanadkan hadda gudihiisa insha allah waxaan jecelahay inaan gobolada u maro aan soo kormeero wixii aan soo aragnay hore inaan haddana aan check up soo sameeyno waxaan xusuustaa wasiirkii hore wasiirkii maaliyadda Samsam Cabdi Aadan mar aan ula nimi barnaamij horanaya inaan goboladii waxba gaarin wixii miisaaniyada loogu talagalay miisaaniyada oo dhamay ay Hargeysa ku baxdaan halka ka dhamaan runtii dadaal badan baa laga sameeyay wax badan hadda matalan isu duwaad wareysanaysaa wuxuu leeyahay niyo waxa maxaad u qaban weydaa masaa shidaal baan haysa marka taasi waxay ka laftayn miisaaniyadii la qiimeeyo oo daadijin lagu sameeyo oo laga warhelo gobolkii wuxuu u baahan yahay iyo wixii hawlihii kanaadkii xukuumaddu waxay ku soconayeen hoos daadijin lagu sameeyo wayna dhacday haddana waan wadnaa waana u tegi doonaa wixii aan warbixin keenana golahan ku sheegi doonaa haddii ilaha yiraahdo waqtigeeda iyo goorteeda haddii ilaha ka dhaco وهاج بل مدة بدن بعض هاي حلبان قالها وكيلة وقت ير حقا وايدين حلي بل كود دم سيدبال الغدورية مسألة قالوا يمكن يهرد بايدي ويحكي الساعة بتانه لكن كود دم سيدي إذا كدروف جارا ولا جا مركز قالوا سيدا شيء لكن بالوحيد دم سيدبال سلة الغدور تعضو طلعهم حلبان هذا ينكدم بيا مقابياردي هلوسي ولا والله ما حسبيدو حيسيان oo dadkii ha doortaan baa leedahay bal sidaad aragti maxaa runtii anigu waxaan oran lahaa xisbiyadaha qabyaaladii in laga baxo waa fiican tahay oo hore loo socdo oo ay xisbiyadu dardar galiyaan oo ay xisbiyada ka soo baxaan marka taas lafteeda xisbiyadii waxa yana dabar kale siya dalkii inuu israaca fiican laakiin haddii yar lagu soo koobo mashaakilkeeda leedahay marka hadda goluhu waxa weeye waa 82 28 xubnood 650 waa beesha dhexe runta hadaan ku soo sheego inta kalena waa darafyada marka taas la rabaa in laga baxo xukuumadan hadda waa anaga hadda xukuumadana doorasho diyaar garoobeysa xukuumadda soo socota inay xeerkii marka laga bixi lahaa xeerkii horena wuxuu ahaa one time use mar baa laga baxay xitaa caqabado badan baa ka horyimi waxaan xusuustaa xeerkii hore mar labada golob isku raaceen in dadka la diiwaan geliyo oo qof walba hal cod ay noqoto doorashadu hal cod oo qof walba la doorto oo dadkana la tiriyo taasina ma tuuro gelin madaxweynihii hore baa wuxuu yiri Soomaaliland waxay ku iibsanaysaa doorasho xeerkii maxkamaddu u gudbiyay maxkamaduna qayb ay laashay xeerkii
waxayna ku soo gebagabaysay halkaa mar baa laga bixi karaa hadda weli xeerkiina uu taagan yahay marka xeerkaasna sidii laysula jaan qaadi lahaayo dee dadku ay u sugnaan lahaayeen oo gobolada tabashada ka jirto iyaga laftooda dee wixii ay xaq u lahaayeen ay u heli lahaayeen si ay mar transparency u dhaco oo wax loo sameeyahay meesha noqoto taasan dee ku boorinaya taasna waxa laga bixi karaa iyadoo tala qaran laga galo taas oo si qarannimo loo fikiro baa lagaga bixi karaa baan aaminsanahay waayahay xeerka saami qaybsiga maxaa hortaagan baa isleedahay caqabado badan baa ku xeeran dee aniga waa kuu sheegayba tiradii hadday 82 tahay oo 56 ay meel isku beel yihiin maxaa adiga aragtidaada say noqonaysaa dhadhan sidee bay samaynaysaa marka hawl gasheen idinku muddaa ku jirteen meesha anaga waan ka hawlgalay waana shaqaynay runtii laakiin dee wixii in la isla qaato oo dadkii oo dhamme ay ka wada fikiraan oo ay noqoto hawl qaran marka waxaan qabaa kolley in lagu guuleysan doono marka doorashada dambe ee madaxweynaha ku soo baxa uu si qarannimo uga shaqayn doono oo ay hawshu noqon doonto hawl laga wada hawlgalo oo la rogrogo oo laga fikiro oo muddo la yare la habeeyo markaa sidii la isku raaco oo haddana transparency leh in lagu guuleysan doono insha allah waxaaga cabdilqaadir himiladaadu ku dhaado ma laga yaabaa inaad dib isku soo sharaxdo xildhibaannimada baarlamaanka insha allah saaxiib dee wax iga dabraya ma jiraan inkasta waqtigeeda iyo goorteeda ay leedahay siyaasaduna way isgedgedidaa ma ogtahay oo way isrugrugtaa marka insha allah waan dadaali doonaa waqtigeeda iyo goorteeda dee sabab i dabraysa oo iga joojinaysaana ma jirto wahagaag haddaynu kusoo noqono arrimaha nabadgelyada kaalinteebaa baarlamaanku ka qaataa waxyaabo badan baa jira wadanka sideed u aragtaan والله قالوا runtii guddi baa jirta guddida nabadgelyada oo guddi khaas ah buu leeyahay guddidaasaba takhasus kale oo inta badan ka shaqeysa guddidaasana mar waxay la hadlayaan oo ama tala soo jeedinayaan taliyaha wasiirka arrimaha gudaha saasay u shaqeeyaan oo wada aragtooda marbar bay u yeedhayaan oo wixii ay markaa arkaan ama ay dareemaan bay uga waramayaan kabacdina wasiirka uu gudbinaya wasiirkuna halkaas ka sii qaadaya marka taas anigu waxaan qabaa goluhu dadaal badan ba ku sameeyay guddiduna safaro badan bay u baxday way shaqaysay runtii sababa mar waxaan xasuustaa xeerkan xitaa hadda lagu muraysan yahay golaha ee caqabada ayna iyagu xitaa ilaa gobolka Sanaag tageen runtii marka taa insha Allah inay iyaguna dadaalkooda sameeyaan baa soo jeedinaya golahanna maanta waa golo cusub shir guddoon cusub baa soo kordhay waxaan qabaa intaa inuu gala sii dhawaado halkii uu golihii hore uu sii joogay uu talaabo hor la sii qaado insha Allah waxagaag intaasi waxa aan ku soo gabagabaynaynaa toddobaadka iyo barnaamijkeennii milicsiga siyaasiga tan iyo intaanu ku kulmi doono waa xildhibaan cabdilqaadir jaamac maxamuud xaamud aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaalinta iyo sida aad noo ajiibtay